xiisad dagaal oo u dhaxaysa Somaliland iyo SSC Khaatumo ayaa ka taagan magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag kaasi oo ay isku haystaan dhinacyadan. Xiisadan iyo dilalkii ugu dambeeyay halka ka dhacay iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaasi lagu dilay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Cumar Guux ayaan ahay hadii uu muuqaalkii soo gaaro si shirkado saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidiina noogu reeba oo ugu duceeya wiilashan dhalinyarada ah ee naftooda ku waayay gudaha magaaladaasi Ceerigaabo iyo duleedkeeda intaba. marka la soo dhawaado saaxiibayaal duleedka magaaladaasi Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxa maalinimadii shalay ilaa iyo xalay ka socday dhaqdhaqaaq ciidan iyo dagaallo toos ah oo ay markaasi wadeen isla markaana u dhaxeeyay ciidamo ka kala socday dhinacyada Somaliland iyo SSC Khaatumo waxaana la sheegay in deegaan lagu magacaabo ama duleedka ka ah magaaladaasi Ceerigaabo uu dagaalka ka dhacay kaasi oo khasaare xoogan geystay ka hor dagaalkaas inta uu dhicin habeen ka hor waxaa halkaasi ka dhacay dagaal kale oo u dhaxeeyay ciidamo la sheegay in ay markaasi ka socdeen SSC Khaatumo misna ahaayeen ciidamada deegaanka ee ku sugan gudaha magaaladaasi Ceerigaabo iyo ciidamada booliiska iyo kuwa militariga Somaliland oo isku dhinaca waxaana la sheegay in dagaalkaas tiro ku dhow hal qof uu ku geeriyooday halka tiro ka badan 3 qofoodna ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo laascaanood iyo Ceerigaabo dhaawacyadooda lagu dabiibayo. wixii ka dambeeyay dil Allah u naxariistay wiil dhalinyaro ah oo Salmaan lagu magacaabo loogu geystay duleedka magaaladaas ayaana la sheegay in xiisadii ka dhalatay shalay ay keentay in dagaal uu dhaco oo deegaan markaasi duleedka ka ah magaaladaas ay ku dagaalamaan ciidamo ka kala socda Somaliland iyo sidoo kale SSC Khaatumo. dagaalkaas inta la xaqiijiyay wax dhimasho ah ma jirin laakiin dhaawacyo ayaa soo gaaray dadkii qaar ee halkaas ku dagaalamay shacabkii halka deganaa ayaana ka baxay halka dagaalka uu ka dhacay waxa saaka dil uu ka dhacay isla gudaha magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag wiil dhalinyaro ah oo magaciisa lagu soo koobay Cumar ayaana halka lagu dilay oo la sheegay inuu kamid ahaa ganacsatada magaalada kana soo jeeda deegaan ahaan SSC Khaatumo isla sidaas oo kale Salmaan oo isna wiil dhalinyaro ah oo deegaan ahaan Khaatumo ka soo jeeda ama SSC ka soo jeeda ayaana halkaas dilal kala duwan loogu geystay. xiisad ka dhalatay arrintaas ayaana xilligan ka taagan magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaana laga cabsi qabay in halkaas uu dagaal ka dhaco. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa warbaahinta ama bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku baahiyay qoraal uu kaga hadlay Ceerigaabo oo uu tilmaamay inay ka socdaan wixii ka dhacay laascaanood oo ay dadka shacabka ka kacdoomeen sidaas oo ay tahayna wali Somaliland ay fursad u haysato in dadka shacabka ay halkaas degan ay dhibaatada ka dhaafto. war saxaafadeed ka soo baxay goordhow Somaliland waxa lagu sheegay in maleeshiyad hubeysan ay qas ka wadaan gudaha magaalada Ceerigaabo taasi oo ay doonayaan inay ku qalqalgeliyaan ammaanka waxaana ay sheegeen in gacan bir ay ku qaban doonaan ammaanka dadka shacabka ah ee muwaadiniinta Somalilanderka ah waa sida lagu sheegay war saxaafadeedkeed. xaaladda ayaa hadda degan laakiin mar walba waxa laga cabsi qabaa in halkaas isku dhacyo ciidan markaasi uu ka dhaco oo u dhaxeeya ciidamada SSC Khaatumo oo halkaas la sheegay inay ku sii qulqulayaan iyo Somaliland ciidamo halkaas ay ku soo daabasho wixii ku soo korona saaxiibayaal barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa oo idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi hela.